Karim Benzema oo ka mid ah weeraryahanada ugu caansan kubadda cagta adduunka ayaa muddo ku dhow 6 sano laga mamnuucay inuu u ciyaaro xulka qaranka Faransiiska. Tani waxay dhalisay hadalhayn badan iyo doodo waaweyn. Haddaba daawade, nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalkan si aad u ogaato xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan sheekadan hadalhaynta badan dhalisay. Hase yeeshee, is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid, aanu sii gudagalno muuqaalkeena. Fadeexaddii cajaladda galmada. Tani waa sababtii ugu weyneed ee bilowgii dhibaatada. Sanadkii 2015, Benzema ayaa lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa shirqool lacag looga madax furanayo saaxiibkiisii xulka qaranka Matteo Valbuena, kaas oo lagu hanjabayay in laga baahin doono cajalad galmo ah. Baaritaankii ruuxay Faransiiska. Bishii November 2015, booliiska Faransiiska ayaa soo xiray Benzema si wax looga weydiiyo kiiska Valbuena. Inkastoo markii dambe la sii daayay, haddana in ciyaaryahan weyn oo xulka ka tirsan loo xiro dambi culus waxay dhawarjab ku ahayd anshaxa xulka qaranka. Go'aankii xiriirka kubadda cagta Faransiiska. Madaxda xiriirka kubadda cagta Faransiiska, gaar ahaan madaxweynihii xilligaas Noël Le Graudel, ayaa si rasmi ah u hakiyay booskii Benzema ee xulka bishii December 2015, isagoo sheegay inaan loo yeeri doonin ilaa kiiskiisa maxkamadeed laga gudagalo. Go'aankii adkaa ee Didier Deschamps. Tababaraha xulka Faransiiska Didier Deschamps ayaa mudnaanta koowaad siiyay midnimada, degenaanshaha iyo asluubta qolka labiska. Wuxuu aaminsanaa in joogitaanka Benzema uu carqalad iyo dhibaato dhex dhigi karo kooxda dhexdeeda. Sidaa darteed, wuxuu go'aansaday inuu ka reebo xulka. Eedeymihii cunsuriyadda ee Benzema uu soo jeediyay sanadkii 2016, kadib markii laga reebay xulka Faransiiska ee martigelinaya Euro 2016, Benzema wuxuu wajahay muran iyo cadaadis si weyn u saameeyay mustaqbalka xulka qaranka. Benzema ayaa wareysi uu siiyay joornaalka Marca ku yiri Deschamps wuxuu u tanaasulay qayb ka mid ah Faransiiska oo cunsuri ah. Hadalkaas wuxuu dhaliyay caro iyo buuq weyn, wuxuuna gabi ahaanba meesha ka saaray xiriirkii ka dhexeeyay isaga iyo tababaraha. Weerarkii lagu qaaday guriga Deschamps. Kadib markii Karim Benzema uu sheegay in tababare Didier Deschamps uu u tanaasulay cunsuriyadda, dad ka carooday arrintaas ayaa bartilmaameedsaday guriga Deschamps. Qaar ayaa rinji ku buufiyay guriga iyagoo ku qoray racist oo loola jeedo cunsuri, halka kuwo kalena ay sameeyeen falal lagu cabsi gelinayo qoyskiisa. Deschamps wuxuu u arkay arrintaas weerar ku socda isaga iyo qoyskiisa, ma ahan oo keliya dhaleecayn kubadeed. Sidaas darteed ayuu sheegay inuusan weligiis cafiyi doonin, sababtoo ah waxay khatar geliyeen amniga iyo nabadgelyada qoyskiisa. Saameynta siyaasadda iyo aragtida shacabka. Arrimaha Benzema waxay dhexgaleen siyaasadda dalka Faransiiska. Ra'iisul wasaarihii xilligaas Manuel Valls iyo siyaasiyiin kale oo caan ah ayaa fagaarayaasha ka sheegay in ciyaaryahan aan tusaale fiican u ahayn dhalinyarada uusan u ciyaari karin xulka qaranka. Guulihii xulka Faransiiska ee la'aantiis. Intii uu Benzema ka maqnaa, Faransiisku waxay gaareen finaalka Euro 2016, waxayna ku guuleysteen koobkii adduunka 2018, maadaama kooxdu ay guuleysanaysay iyadoo uu hogaaminayo ciyaaryahan Olivier Giroud. Tababare Didier Deschamps ma uusan arkin baahi degdeg ah oo uu Karim Benzema dib ugu soo celiyo xulka Faransiiska. Khilaafkii kala dhexeeyay Olivier Giroud. Benzema ayaa hadal muran badan dhaliyay ku weeraray Olivier Giroud oo booskiisa xulka Faransiiska ka qaatay. Isagoo isbarbardhig sameynaya ayuu yidhi, haddii la isbarbardhigo Formula 1 iyo karting, anigu waxaan ahay Formula 1. Inkastoo uu isku dayay inuu muujiyo kalsoonidiisa iyo tayadiisa ciyaareed, haddana hadalkaas waxaa loo fasirtay inuu yareynayo tayada Olivier Giroud, taasoo sii xumaysay jabigii horeba u kacsanaa ee kooxda. Go'aankii maxkamadda ee sanadkii 2021. Ugu dambeyntii, sanadkii 2021, maxkamad ku taal Faransiiska ayaa Benzema ku heshay dambi ah inuu ku lug lahaa isku daygii madax furashada, waxaana lagu xukumay 1 sano oo xarig ah oo shuruud leh iyo ganaax lacageed. Inkastoo uu xulka ku soo laabtay waxyar ka hor xukunka Euro 2020 oo la ciyaaray 2021, haddana kiiskan sharci
wuxuu ahaa midka caqabada weyn ku ahaa muddada dheer. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.